然后这个后面去的当中。waxaan ku faraxsanahay waxaan nasiib u yeelateen in maamulkii gobolka oo cidna aan ka maqnayn maanta diyaarada ku yahay airportka ay ku soo dhaweeyeen meesha conference hallkii waa wax cajiib ah runtii hore uma dhici jirin aad iyo aad baan idin salaamayaa soo dhawaadaan in leeyahay barda gudoomiyadu jooga isaga muhiim ah hadii ilaahay maayay laakiin waxa muuqata inay ka duwan tahay wixii horeeto oo aan soo raacnay gobolkii iyo degmadii iyo ay wax aad loogu farxo ay tahay kooxda dhalinyarada kubadda cagta ee boqasha FC oo dhiiri gelisay inay dhalinyarada reer Melbourne ay halka yimaadaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed Australia reer Melbourne oo halka ku soo dhiiratay inay halka timid magaalada Boosaaso amba aan ka warqabo inay tahay magaalo multicultural ah oo Melbourne u dhigmi karta dabcan oo qowmiyado badan iyo shucuub kala duwan ay ku nool yihiin taasna waxay cadeynaysaa nidaamka iyo kalsoonida iyo is-aaminaadda ka jirta magaalada. The beach was beautiful. It was amazing. The water was not as cold as it is here in Melbourne. So it was just one of those waters where you could just jump in without saying, you know what I mean? Like from the cold and whatnot. In Bosaso, you could go anywhere at night as you please, go to the beach, go to restaurants, and people were very friendly. So they were free in doing whatever they want. So we played against the Bari and we played against Bosaso City. So we played 2 games in Bosaso and we stayed in the Red Sea Hotel, which was organized by Yassin Dihal, Amil Express, which we thank him and for the hospitality that he gave us for the 3 full days that we were in Bosaso. wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda la dagaalanka dambiyada badda wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda wasiiru dawlaha wasaaradda dekedaha wasiiru dawlaha wasaaradda warfaafinta taliyaha madaxtooyada xildhibaanada golaha deegaanka agaasimeeye waaxeedyada dawladda hoose dhalinyarada reer Australia isduwaha wasaaradda sportska gudoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaaliya mas'uuliyiinta hogaaminaysa teamkan reer Australia sportska magaalada Boosaaso inta ka fadhida dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xafladan runtii aad ka quruxda badan marka ugu horeysa inaan ku soo dhaweeyo dhalinyarada Soomaaliyeed meesha fog nooga soo safartay inay la ciyaarto dhalinyarada ay isku facayihiin oo sportska niyadda u haysa runtiina magaalada Boosaaso u soo kordhiyay sumcad iyagana maxay tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan xafladan kala soo qayb galo inaan ku soo dhaweeyno Soomaaliya waa isku mid meel kasta ay joogto waxaan fariin farayaa dhalinyarada sportska ee nooga yimi Australia in ay salaan nabadeed hiddiilo walaaltinimo ay naga gaarsiiyaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Australia waxaan sidoo kale fariin lamida u dirayaa qurba joogta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba in ay ku daydaan reer Australia oo ayagana dalkooda yimaadaan dadkooda dhax galaan
sports iyo kubad ciyaaraan hidaha iyo dhaqankii la muujiyo dabcan imaantikiinu ma aha sport wax macna ka weyn baa xarmaarsan yahay wuxuu yahay inaad bixinaysaan duruus iyo tacliimaad iyo ma garanaysaa wacyigelin la xiriirta Soomaaliya waxa ay tahay iyo waxa ka jira dhalinyartan ka yimi Australia runtii waxaan u arkaa inay tahay dhalinyaro runtii ka gedisan dhalinyarooyinka kale ee Soomaaliyeed waayo sida la sheegay waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo Soomaali ka kooban reer Australia waddanka oo dhan raba inay maraan saan jecelahay marka way ka gedisan yihiin runtii dhalinyarta qurba joogay waagi hore dibadda inuu ka iman jiray marka waxaan leeyahay horta dalka si fiican u sii barta ogaada dhulkii hooyay wuxuu yahay ogaada dhulka ka tagteen sida uu yahay horumarka ku beeray amnigu waa nolosha waa bidaayada nolosha weey ciyaartoyda la sheegay hadda maanta bisha joogta haddaan abni jirin ma yimaadeen waddanka kama ciyaareen waxa weeye astaamaha horumarka ka mid tahay ciyaaruhu waxay ka mid tahay ciyaartu astaamaha nabadda kow inay Soomaaliya tahay meel amniya wiilka Australia ka yimaada Moqdisho intuu ka soo bilaabo guud ahaan Soomaaliya dhamari karo runtii waa ogtiin ideolojiyada laga aaminsan yahay markii caalamka la joogo Soomaaliya meel fakhriya bila amniya aan sadexgal lahayn tan labaad waxay bixinaysaa message ah in dadka Soomaaliyeed dad ismartiqaadi kara leh social integration leh soo dhaweyn walaaltinimo aan qabiil iyo deegaan midna uusan kala xadidi karin xeeb qurux badan nolol fiican oo aan aragnay waxaan rajaynayaa dhalinyarada sportska inay aad uga heleen magaalada Boosaaso qaar iyaga ka midan insha Allah inay soo degi doonaan future-ka sababtoo ah meel kasta oo aan marno dadkan hore Soomaaliya uma arkin meel kasta oo ay maraan kulay qoraal bay ka qaadi doonaan iyaga kaliya maaha inta ay ka soo tageen waxay warbixin ka bixin doonaan soo dhaweyntii sooridii iyo magaalo walba macnaha ammaankeedii iyo systemkeedii runtii waan ku faraxsanahay aadan idinkaga mahad celinaynaa xadiis khudsiya jira oo ilaah uu leeyahay man laa yashkuru naasa laa yashkuru Allah sidaad noo sharaftaan ilaahay idin sharfo sidaad noo wanaajisan ilaahay idin wanaajiyo aad iyo aad idinkaga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa in mustaqbalku soo noqon doono Boosaaso waxaan rajaynaynaa insha Allah sanadka soo socdana in sidan oo kale Boosaaso intaan ka sii wanaagsan oo garoonkeeda dhismay oo aad u qurux badan inaan u soo laabano taasna waxaan baaq u jeedinaynaa jaaliyadaha reer Boosaaso ee qurbaha ku nool iyo kuwa gudaha ku nool iyo dawladda Puntlandba in gacan laga geysto garoonkii aan aragnay quruxda badnaa in dib u habeen lagu sameeyo waan ogahay inaana waxba ku qaadan karin haddii Allah wada lidmo hadda waxay sababtay in meel walba hadda naga ka soo salaamo oo la yiraahdo Boosaasan imaanana Puntland baa imaanana garoon tageynaa garoomadu waa dayacan yihiin xaqiiqatan annagu kuma eedeynayno dawladda siyaasad ka hadlimayno laakiin wax qabad baa la rabaa garoonka haddii wax laga qabto oo maanta fundraising aan u sameeyno waxa weeye wax kasta waa dhaqaaqi karaa xaqiiqatan garoonka magaalada Boosaaso runtii ma aha garoon waqtigan hadda la mid ah garoomada kaleeto ee dunida laakiin waxa ballan qaadayna insha Allah taala 6 bilood gudahood in isbedel laga arki doono hadii rabiira annagoo iskaashanayna wasaaradda sportska dhalinyarada shaqada ee shaqaalaha Puntland waxaan wasiirka isla qaadanay inaan dhisno garoonka waxaan rajaynaynaa insha Allah meelaha sportska oo ugu horeeyo garoonka aad ka dhawaajiseen oo ku mahadsan yahay gudoomiyuhu maanta uga hadlayay arinteeda run ahaantii waa arin ay dawladdu
si gaara ugu hoolan tahay in isbeddel laga dhaliyo garoonka kubadda cagta ee magaalada Boosaaso marka xiga marka timaadaan insha Allah taala waxaad arki doontaan garoonka oo maaragtay sida hadda uu yahay si ka fiican ah laaskiyo guud ahaan sanaagiyo gobolka karkaariyo geeya bari geeya wardafuuna geeya haylana geeya geeya wada geeya geeyigana geeya I'll tell everyone, well, I should go back to Somalia, reconnect with your culture, because wallahi, it's not how people make it seem like. Honestly, I enjoyed it. The whole team enjoyed it. When I saw the way in, and all, I just have amazing people. So I'd say to everyone, you guys should definitely go down there, wallahi. I just want to give a shout out to Yasin Dihal from Amal Express here in Melbourne for hooking us up with the hotel and the amazing food, and his brother also for looking after us and making sure that we had everything that we needed during our stay in Bosaso.